bardhagtiyadan aa ujeediin ee korkeyga saaran saa ujeediin sida shaashada idinkaga muuqdo su-aalo badanaa kasoo baxeen miisaanka ma dhimaan oo ma lagu dhimi karaa dad yacni isticmaalaa jirtaa miisaanka ma dhimi karaan mise ma dhimi karaan su-aalaha laysoo weydiiyey su-aalahaasaa ka mid ah inaa ka jawaabo hadduu ilaahay idmo walaalayga qaaliga haddii aa isticmaalaysa bardhagti ka mid ah bardhagtiyada laysku caateeyo in lagu caatoobayo iyo cuntada caadiga isticmaalaysid in lagu caatoobayo labadaas insha allah jawaabahooda inta maxooha videogana insha allah kusoo qaadanayna hadduu ilaahay idmo keebaa lagu caatooba bardhagtiyadan keligooda lagu caatooba oo miisaanka rido mise haddii aa cuntada bedelo waa caatoobi karaa keebaa miisaan ridi karaa labadaas shay insha allah sharaxaad buuxda insha allah idinkaga soo gudbinaa iyo wixii markaas adiga kugu munaasaba hadduu ilaahay idmo videoga bilaa ilaa dhammaad fiirso soo dhawaada idinle walaalaha qaaliga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayga qaaliga kusoo dhawaada janalkayga munays meel walba adduunka ka joogtaan inay igu caafimaad qabtaana rajeynaa fadlan haddii ay tahay marka ugu horeysa aa janalkayga soo booqanaysa waxaa kaa codsanaa inaad subscribe noo saarto gambaleelkana aa furato si video walba aa soo geliya ama muuqaal walba oo kuga soo dhaco amaba aa noqoto daawadaha ugu horeeyo waana mahadsantiin dhammaantiin walaalaha horey la joogi jiray iyo walaalaha dambe ee janalkayga kusoo biiray dhammaantiin waxaa idin leeyahay waa mahadsantiin soo dhawaada gacmo furan iyo qalbi saafiya insha allah waa mahadsantiin inaa idin dhahna marnaba kama daali doona maasha allah tabaaraka allah aad iyo aad ay dhiirigelisiin aad iyo aadaan ugu mahadsantihiin teeda kale waxaa idinka codsanaa inaa muuqaalada iisii sheer garaysaan laagtana iga ilaawin idinka la-aantiina waxba ma ahaadeen aniga idinkaa mar walba i garab taagan oo i dhiirigelinaayo dhiirigelintiinaana ku socdaa mar walbo intaas hadda aga gudbo walaalayga qaaliga ah su-aalo dhowr ay kusoo noqday haddii aa muxuu ahaaye aan isku day su-aalahaas inaa ka jawaabo aniga hadda ka hor markaa miisaanka iska dhimaayay saa hore idinkugu sheegay cuntada caadigaa keligeed ma isticmaali jirin laakiinse bordhagtiga xilligaas isticmaalayay bordhagtigaas muxuu ahaa herbalife nutrition muxuu ahaa isticmaali jira laakiinse hadda way ka bedelan tahay miisaankaygana koley sawir ahaan insha allah waa idinla soo wadaagaa hadda intaa isticmaalaya yani oo ay nuujinaysana waa ahay maasha allah marka miisaankayga dhacan insha allah waa idinla soo wadaagi doonaa marka su-aalaha isoo weydiisiina waxay tahay dad badana waxay iisoo direen sawirada cuntooyinka oo bardhagtiyada ay soo saaraan kambaniyada oo laysku caateeyay yani waxaa loosoo hagaajiyey dadka miisaanka leh inay cunaan ay isku caateeyaan aa loosoo hagaajiye bardhagtiyo badan ay isugu jiraan hal bardhagti ma ahan kambani walba shirkad walba bardhagti oo soo saartaa laakiinse meesha yani ay ka midaysan yihiin amaba muxuu ahaaye ee iskaga midka yihiina waxay tahay in miisaanka lagu dhimo okay su-aasha isoo weydiiseena waxay tahay oo ugu badan oo qaybta messengerka laga soo weydiiyey oo weliba sawiradan laysoo diray oo laleeyahay munaysamiya hadda kahor adaa soo isticmaalay bardhagtis oo miisaanka lagu dhimo miisaanka ma dhimi karaa haddii aa isticmaalo bardhagtiyadan qaarna way isticmaalaan oo waxay dhaheen weli wax miisaana noogama dhicin qaarna hadday rabaan inay isticmaalaan yani information ahaan ay u baahan yihiin inaa muxuu ahaaye aan uga jawaabo marka dad badan oo janalkeyga ku xiran waxaa laga yaabaa maskaxdooda in waxaas ay ku laalaabanayso iyagana iska dhaadhacsiinayaan qaarkood yani in haddii bardhagtiyadaas u isticmaalayna qofka oo miisaan uu ka dhaceynin insha allah marka waxaa jeclaa videoga intaas oo macluumaada inaa yani uga hadlo si uu miisaankaaga adig uu ku dhici karo aan kuu sharxa hadduu ilaahay idmo awalan haddii aa ku hormaro sawiradan meeshaan aa ujeegtiin cuntooyinkan kambaniga iskale qofaa soo saaray yani daday shaqadooda taa ani shaqadeeda ma ahan laakiinse waxaa rabaa in mar walba idin dhiirigeliyo qofka aana helayn dadka biniaadanka isku wada mid ma ahan qof qarashka wuu heli karaa oo iskaga bixin karaa qofna ma heli karo soo maahan marka taas darteeda igu kaliftay inaa soo fadhiisto aa idin soo sharxay insha allah wixii markaas aniga aan ka ogahay iyo wixii idinka naftirkiina markaa idin sheegay maskaxdiina aad ka dhamaysanaysin haddoo ilaahay idmo bardhagtigan ani bardhagti oo noqday yani bardhagti walba oo miisaanka lagu dhimaayo awalan mid lagu leeyahay horta waxay tahay waxaa lagu dhahaa يعني ما جرى بردكت أنت عنتد أورت أكو عاتوبس ما جرته أضو عنتدا دي عادي قادن جرت أكو عاتوبس ما جرته مركو جورس حتى بردكت مركا سو قادن يسدحوا لي هاي من سيستم ولا جدول ولا وحال ولا سلي تعدي كتك عصبة كتك سكرت كتك بركة بريسك وحصل جوجي على قدها أوكي مركو حنجعلها إلى مسكحدين إسيسينا جعلها هاي
meesha boontigu ku jiro oo muxuu ahay sirta ku jirta inaa fahmaysiin adiga waxaa lagu dhahay cuntooyinkan jooji kadib cuntadan cunaa lagu dhahay miisaankaagaa ku dhacay laguma dhihin adoo cuntadaada cunaya cuntadan ku dul cun ee miisaanka uu kaa dhacaa meeshaas waxa ku jira waxay tahay haddii cuntadaas aad joojisid oo cuntadaada aad badishid miisaankaaga inuu dhacayo maxaa diiday marka haddii adiga aa awoodin ama haddii aadan rabin inaa isticmaashid barodhagtiyadan in cuntadaadii adiga naftirkaaga iska dhaaftid burka bariiska sokorta cusbada hilibka ariga yacni cuntadeeni la shishiilayo o dhan inaa iska dhaaftid oo aa ku bedelatid cuntooyinkan barodhagtiga oo soo saaraya ma ahan wax gooni oo soo saaraya maaha waa cuntadii madoobeed oo lagu soo hagaajiyey oo muxuu ahay daawooyin iyo wax lagu soo dardaray oo kaliya waa yacni si oo muxuu ahay uga ilaaliyo in cuntadii ay dhibaato ay ku imaado darteeda cuntooyinkaas kaliya laga soo hagaajiyey waxa yacni ku caateenayna ayada ma ahan waa cuntadii lagaa reebay oo adiga lagu dhahay cuntooyinkaasa cunin saasaa ku caatoobay ma ogay haddii adigoo bariiskaaga burkaagii baastadii cabitaanadaada adduunkaaga cunaya haddii kan aa kusii yacni ku darsatid oo aa la isticmaashid miisaankaaga ma dhacaayo maskaxda meesha ku jirto oo muxuu ahay dadka barodhagtiyada soo saarayo ay isticmaalayana waxay tahay cuntooyinkaasaa lagaa reebaa cuntadana muxuu ahaa cunaysa aa ku caatoobaysaa lagu leeyahay yacni ma lagu sharxayo ma lagu dhahayo cuntadaasaa dhibaatada ku keenta ma lagu dhahayo janalkaygana waxay tahay aniga waxa aan dadka muxuu ahay hadda aa ka wacyigeliyo oo gabdhaha badankooda 100% ee muxuu ahay u baahan yihiin in laga baraarujiyo laga dhiirigeliyo in cuntooyinkaas ay iska dhaafaan oo anaa u soo saaraa mar walba cuntooyinka caafimaad kale aa janalkayga mar walba u soo geliyaa waxay tahay si miisaankooda uu ku dhici lahaa barodhagtiga markaa isticmaalaysa ana barodhagti yacni ha ahaado barodhagtigoo doona ha ahaado waxaa lagu leeyahay intaasaa ka dheeraanaysaa biyo badan cabaa lagu leeyahay jimicsi sameeyaa lagu leeyahay yacni ma lagu dhahaa iska seexo oo yacni jimicsi la-aan yacni wax jimicsi ha sameynin bariiskaaga cun baastaada cun waxaaga cun tanna cun way ku caateynaysaa ma lagu dhahaayo sirta meesha ku jirtaa waxay tahay cuntada inaa badashid okay haddii adi aa awoodid oo muxuu ahaa iska bixin kartid qarashkeeda oo u baahan tahay waa gadan kartaa oo waan isku caateyn kartaa laakiinse waa inaad joojisaa burka bariiska baastada waxaasoo dhan waa inaad joojisaa jimicsi la-aanna maba caatoobaysid yacni barodhagtidaas waxay leeyihiin dad koojaj ay leeyihiin oo ku shaqo leh oo shaqadooda ay tahay yacni ayagaa markaas ku sharxayaan yacni wixii markaas lagaa reebay oo aadan cunaynin jimicsi inaad la samaysid marka taas maanta aan jeclaystay inaad su-aasha ay soo weydiiseen oo si waadax ah oo muxuu ahaaye wax walbo يعني مسكحدين كسونا نقونا مانتا إن محوها هاي يعني أيضا كحقبتران جعلها مركب مجرى وح كلية أول عناي أما بالعباية أديقو استعمالها عنتوين كاقي هور أنا جمع سنة وصرتها الأسارة وقعاتين هاي ما بلا شيء عالم كم ما بلا شيء منجران إن شاء الله مركب وحنقول لي هاي قفكي يعني أودو استعمال كرا قفك أودين عنتذا ساو يعني اسكبدل بريسكي بركي باستدي وحاس cuntooyin kan kale inta ku bedelna fitamiinaad kiisa kaniiniyo waxa jirta oo fitamiinaad oo jirkaaga dhamaan fitamiinada oo baahan yahay aad ka helaysid oo aad soo gadanaysid cuntooyinka qaar sidaas oo kaleento cuntooyin oo borotiin laha jiro ayagana la isticmaalayo oo muxuu ahaa fitamiino badan aad ka helaysid insha Allah hadoo Ilaahay idmo marka waxaan jeclahay in dadka su'aalahaas soo wada weydiiyay oo u baahnaa inaan u sharxo in maanta muxuu ahaay yani ka xaqab bixeen oo يعني أي كافتومين سؤال كلا وهذا قلبي جوده يعني كسون نقول ولا عليه قالي حوجا يرى هذا عنق يرى يكسون قليه هاد مركز استرتي هذا استوب ده هاي مركز وحايدين لها مر والبو حايدين لها قفك إسبدلي كرو وأذيجا وحكو بدلي كرم ماله هذا إسبدلي كرو هذا يعني إسعاتين كرو هذا إسعيلين كرو هذيك وحيرن هاي وحان كلا يعني عنتوين كان لقى قريبة درتي هذا loo soo sameeyay adiga cuntaas isaga reeb la darteeda kan kambanigan loo soo sameeyay laakiin aniga waxa jecel mar walba inta heli kartay intaan heli karin si isku mid insha Allah inuu muxuu ahaay in miisaankooda iska garidi doonado Ilaahay idmo waxaan jecelahay walaalo badan oo janalkayga ku xiran oo aan arkay isbedelo fiican ka heleen janalka iyo muxuu ahaay cuntooyinka oo soo shar cuntooyinka aan soo galiyay waxaan leeyahay marka dadaalkiina meeshaas ka sii wata doo Ilaahay idmo waxaan jecelahay ciida qof walba in muxuu ahaay lifestyle qurux badan oo ku ciidi doono insha Allah dharka oo jecel yahayna oo soo gadan doono oo ku ciidi doono insha Allah balanteen waxay tahay inaan isku baraarujino inaan is dhiirigelino cayilka sidiisaba waa cudur waaye waa
cudurro badan oo na keena insha allah cuduradaasna insha allah mar waa idinkaga soo sheekeyn doonaa hadduu ilaahay idmo cudurro aad iyo aad u badan uu leeyahay caloosha sidoo kaleenta caloosha qofka caloosha dadka weyne dad waxay dhahaan caloosha qofkan yani waxay sida nimanka oo kaleento qofkan qof dhaqaaleysan waayo laakiin isma ahan cudurrada ay leedahay caloosha weyn inta ma lagu soo koobi karo marka insha allah video kaleenta taas idinkaga soo sameynaa hadduu ilaahay idmo waxaana idin soo wadaa hadduu ilaahay idmo dad badan oo isoo weydiiyey shaayga maxaa ku bedelan karnaa kafeega maxaa ku bedelan karnaa waxyaabo oo naturaal ah oo miisaankana aa ku dhimi kartid oona ku caateynayo oona uga maarmi kartid insha allah videoyadaas way soo socdaan hadduu ilaahay idmo jecelahay inaa idin soo horfadhiisto oo wax walba isoo weydiisin aa idinkaga soo jawaabo marka waxaa jecelahay in jawaabihiina oo toosan insha allah aa idin siiyey haddii wax su-aalo kale aa qabtiin qaybta commentka aa igu reebi kartiin amaba messengerka insha allah aa iisoo dhigi kartiin wax su-aalo aa qabtiin sii sheer gareeya insha allah like-tana ha iga ilaabina gacmo farni qalbi saafi kusoo dhawaada janalka waa janalkiina gudaha ugal haddaa igu cusub tahay aad iyo aad uga heli doontaa hadduu ilaahay idmo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu meelba adduunka joogtaan caafimaad iyo cimri dheer ilaaha idin